kulan wacan daawada meel walba oo aad joogto waxaad ku soo dhawaataa janaalka tusmada filmada hadaan oo kale mar kale waxaa idiin soo gudbinaa maxaa maanta laga qoray arrimaha Bollywoodka kuwaas oo aan sidii karna xiiso u leeyihiin oo daawadayaashina halkan ku taxan waa la wadaagi kartaan daawada muuqaalkan ay waxaan ku bilaabi doonaa ka hor filmka Japan Shahruukhan sidoo kale Talafati ayaa waxaa lagu wadaa in lagu wada arko filmka Farithu taas oo sidoo kale warar xiiso leh ay ka soo kordheen labadan xidigba Shahruukhan ayaa waxaa lagu wadaa in sanad soo socdo oo filmo xiiso leh oo ku soo laabto kuwaas oo leenka ugu jira filmadaas ay waxay yihiin kuwa xiiso leh waxaana kamid ah filmka kale ee aad kula wada suglay ee Japan kaas oo noqon doona filmkiisa ugu horeeyay Pan Hindiya filmkaas ayaa wuxuu yahay mid kala horeba ka abuuray gudaha Hindiya iyo sidoo kale caalamkaba mid aad loogu xiiseynaya sidoo kalena waxaa jirto in hal xiiso kale uu dirsantaa kaas oo aan filmkaas muuqaal marti oo ku leeyahay xidiga Vijay Talapati asaate waxaa lagu wadaa in xidigadani inta aysan filmkaasi uusan qayb ka noqon Vijay in lagu wado markaan inuu ka soo hormaro xidiga kale ee Shahruukhan kadib filmkiisa beste xidiga Vijay bandhigiisii aan sidaas u buurnayn ayaa markaan waxa laga yaabaa in xidiguna ku soo laabto filmkiisa xiga ee uu leeyahay Famshi Badbali ee lagu magacaabo Farithu filmkaas waxaa lagu sheeganayaa film madadaal dhameystiran ah kaasoo sidoo kale uu filmkaas yahay film aad u xoogan sheekadiisaba waxaana filmkaasi kala soo muuqan doonto hogaamiyka xidigta Rashmika Mandanna taasoo aad ugu caawinaysa xidigani haatan ayaa waxaa lagu wada filmkan reer Tamil in uu yahay film uu lagu soo dari doono xidiga Shahruukhan kaas oo muuqaal marti ah filmkaas uu ku lahaa doono wararka ay qortay Indian Express ay waxa la sheegay in Shahruukhan sidoo kale directorka Atli in dhawaan ay booqasho ku bixiyeen halkii lagu duubay filmka Farithu wararka waxay sheegay in Talafati Vijay iyo sidoo kale xidigta Rashmika Mandanna ay halkaas hees ku duubayeen taas ay waxa keentay in Vijay iyo sidoo kale Shahruukhan ay wada sheekaysi ay galaan iyo sidoo kale director kale ee Japan lagu magacaabo Atli taas oo sidoo kale sheekadooda wada qaadatay sida la sheegay 2 saacadood inkastoo la ogaan waxyaabaha ka wada hadleen kulankooda asaata wararka waxay sheegayaan in Atli filmkiisa oo director-ka ka hor ee Japan in Shahruukhan iyo sidoo kale xidig kale Vijay lagu wado in sawda jira ay kaga soo muuqdaan filmka Farithu kaas oo la sheegay in Shahruukhan filmkaas uu ku lahaan doono muuqaal marti ah haddii wararkaasi ku soo baxaan wararna ayaa waxay noqon doontaa in labadan xidig wada shaqeyntooda aan aad loo wada sugu waayo dhinaca kale markaan fiirino dhinaca shaqadana Shahruukhan ayaa waxaa lagu arki doonaa filmkiisa Patan ee sanadda soo socdo sidoo kale sanadda soo socda waxaa kale lagu arki doonaa film kale Dunki kaas oo sidoo kale oo sii xiga film kale Japan waxaana sidoo kale sida aanan filmkiisa ee Patan ayaa waxaa lagu wadaa in asarkii uu ku soo laabto 5 sano kadib waxaan ugu dambeeyay filmkiisa Zero kaas oo 2018 la daawaday filmkaas ayaa Patan waxaa lagu wadaa in la daawado 25 January kaas oo sanadan soo socdo iyo filmada ugu horeeya kuwaas oo xiisaha leh waxaan isla eegi doonaa ugu dambeyn filmka Brahmastra isbuucii afraad lacagaha uu keenay kuwaas oo la sheegay inay yihiin lacagaha Brahmastra qaybtiisa Hindiya ayaa isbuucii afraad waxa uu keenay lacag gaaraysa 5.75 karoor taas oo la sheegay inuu yahay lacag iska fiican asagoo sidoo kale maalmaha ugu dambeeyay ee Talaadada Arbacadaba lacag 3 karoor gaaraysa uu keenay taas oo laba jibaaraba lacagaha isbuucii afraad uu ku bilaawday maalmaha horeba filmka ayaa haatan wuxuu lacagiisa guud ee marayaan ee qaybta Hindiya lacag gaaraysa 226 karoor oo 4 isbuuc ah taas oo filmkan lagu wado inuu ku dhawaado lacag gaaraysa ilaa 230 karoor taas oo sidoo kale filmka dhigaysa filmka 19aad ee Hindiya oo lacagta badan iyo sidoo kale filmka afraad ee tan markii laga baxay coronavirus ee Hindiyaba filmka ayaa sidoo kale waxa uu record ka dhigay in uu keeno 23.75 karoor qaybaha lagu duubay ee Hindiga aan ahayn ee Tamilka iyo Teluguga meelaas asagoo sidoo kale wadarta guud ee filmka ka dhigaysa markaan 250 karoor dhammaan luqadooyinka Hindiyaba haddaba aan isla eegno qaybta Hindiya lacagaha uu ka keenay filmka isbuuciisa koowaad 142.91 karoor isbuuciisa labaad waa 50.38 karoor isbuuciisa saddexaad waa 26.97 isbuuciisa afraadna waa 5.75 karoor taasoo wadarta guud ay tahay 225.1 karoor dhinaca kalena qaybaha kale ee luqadooyinka lagu turjumana waa 23.75 karoor taasoo wadarta guud filmka ka wada dhigaysa Hindiya oo idil 249.76 karoor
inta aynu kusoo xirnaa daawada muuqaaladeena marka la soo kordhay maanta ayaan la wadaagnay kuwaas oo aan sidii karna xiiso lahaayeen daawadayaashina halkaan ku taxan waa la wadaagi kartaan haddaad ka heshaan warbixinada la wadaag asxaabtiina oo ku maasintiin alaaba si aad muuqaaladeena aad u daawataan